ciidamada ammaanka deegaanka Dobley ayaa fashiliyay qarax la doonayay in lagu dhibaateeyo mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ee deegaankaasi. wariyahayaga Axmed Suldaan Shiine ayaa warkan faafinaya. waxaa saaki ciidamada ammaanka magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose soo bandhigeen qarax loogu talagalay in lagu qalqalgeliyo ammaanka magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose. qaraxan ayaa laga soo qabtay tuulo barwaaqo oo qiyaastii u jirtay magaalada Dobley 10 kiiloomitir kadib markii ciidamada ammaanka ee magaalada Dobley ay ka war heleen in qarax loo soo wado magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose. waxaa kale ciidamada ammaanka magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose gacanta ku soo dhigeen dadkii waday qaraxani oo gaaraya 3 qof oo rag ah. waxaa markuu howlgalkani soo dhamaaday la hadlay Jubbaland TV taliyaha ammaanka magaalada Dobley Hebe Axmed Cabdullaahi wuxuuna ka warbixiyay sida loo soo qabtay qaraxani iyo dadkii waday. ninkii ay keen hay soo la hadal hadii baalke bas ninkan la soo hadlay waxa la ninka hadii marka aan soo wuxuu ninka ila soo hadlay kartoonki askariga u dhiibay ila wiirka ninkan waxa ninkii aan ii soo dhiib wuxuu leeyahay ninka halo dhiibay u dhiib ha kartoonki waxaan kartoonka halo dhiibo marka kartoonka u dhiibo ani meesha aska fariis mobilin aska hagaajinay 2 daqiiqo waxaan arkaa in qabaal orday imaado meesha bas maxaa jir meesha aan lagu darbaxay soo baxay waraas saldhigaana ma keenay adaa ii imaaday meesha marka ay baad xaday ninkan alaabta ninkii ku keenay sheek alaabta waxba kama warhayaan ku gaariyaas oo yuudiyaha wiil wato meeshan keenay ismarkii tambixayno oo meesha aan aadayna ninkii la keenay ha gabadha ma qoto ma istiri ninkan alaabta uu ku dhiibahayo inay dib keenin karto ma adii laftirkaaga ma isweydiisay wallahi taas fadeed isoo gelisay mooyaa iska baarjay aad naagtii oo male walaalo igi taas ku soo qaaday moogi waa baarjay hay intaad kan tamar waxa keenay mantaan oo meesha wax ku sameynaa mobile waxa uu waday iPhone iyo telefono ya nimankan u geey maalin sabti ah waxaan qabanay miino ay soo dhiibeen gacan ku dhiilayaashii dad cunka ahaa ee waraabaha ee rajooyinkii agoonta leen jiray taasoo ay ugu talagaleen inay xafiiska amniga degmada Dobley xafiiska taliyaha amniga degmada Dobley inay ku xidhaan oo ay ku dhibaateeyaan maxaan ku radaa sargaalka meesha mas'uulka ka ah iyo askarta ama saraakiisha kale wada shaqayntu ka dhaxayso waxay ugu talagaleen dhammaan inay dadka reer Dobley ku dhibaateeyaan waxay ugu talagaleen inay wixii khayaaliga ay sameyn jireen waxay u maleeyeen wixii khayaaliga ay sameyn jireen Dobley meel ka fisheenay tahay waan qabanay bamkaas miinada telefoonka tooshalaha ku xidhan yahay waan qabanay waxaan qabanay nimankii dambiilayaashii gacanta ku hayay keenay Dobley keenay waan qabanay gaarigii keenayna waan qabanay waxaan insha Allah rajayn doonaa aan ku rajaynahay inaan wax walba oo ay leeyihiin ama ay wataan inaan soo fashilin doono waxaan ku helay dadka reer Dobley oo dad wanaagsan oo daacad ah wada shaqeeya waxaan oo kale aan la dhaxmarin karina insha Allah waxaan leenahay waan tan waan ku guuleysanay kuwa kale waan ku guuleysan doonaa insha Allah runaantii waan si aysanay baaburku intuuna soo galin ka hor baan information ka helay waxaan helay in ay socoto meenadaas gaari tuulo barwaaqo iman doona inuu wado waxaan helay ciidamada amniga nabadgelyada degmada Dobley oo meelo badan jooga oo baaritaan badan sameeya ayaa noo soo sheegay in qalab ay ka shakiyeen ku arkeen gaari ay soo baareen oo soo dhaafay taasoo ay naga codsadeen inaan ciidan u dirno ciidankii aan u dirnayna waxay soo qabteen ninkii gacanta ku hayay alaabtan iyo miinadii iyo dadkii gacanta ku hayay inay soo qabtaan dawladda Jubbaland ciidamada dawladda Jubbaland ee Dobley gacanta ku hayaan nimankii loo soo dhiibay qalabkan miinada qaraxda iyo mobilka ku xiran iyo maxaan ku raada dadkii loo soo dhiibay gacanta si buuxda ugu haynaa ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ee degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa wixii maalmihii ugu dambeeyay howlgallo ay ku xaqiijinayaan ammaanka ay ka waday duleedka magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose iyo gudaha magaalada Dobley. Axmed Suldaan Shiine, Jubbaland TV, magaalada Dobley, Jubbada Hoose.